السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكين محمد زياد iyo channelkii aad uga barateen horumarinta nafta bani aadamka, maxaadarooyin wax ku ool ah, qisooyin qalbiga taabanaya, tarbiyada carruurta, arrimaha qoyska iyo dhammaan waxyaalaha ama mawaadiicda qiimiga iyo wanaagga ugu sugan ummadeenna Soomaaliyeed ee muslimka ah. Walaalayaal, maanta waxaan idin wadaa dardaaran ka mid ah dardaaranadii hooyooyinkii wanaagsanaa ka mid ay u dardaarantay gabadheeda markii ay galbinaysay. hooyada waxaa la yidhahdaa Umaama bint al-Xaarith. gabadheeda oo uu kasoo doonay boqorada reer Yaman ka mid ah ayay siisay, kadibna dardaaran ayay u dardaarantay. markii gabadha ay sii sagootinaysay ayay waxay ku tiri, gabadhaydii haddii dardaaranka looga tagi lahaa, maadaama qofka uu yahay qof edeb badan oo caqli badan oo xikmad badan, maanta adiga laguma dardaarmeen. laakiin waxay tiri dardaaranku waa tadkira lilghaafil, waa tadkira iyo xusuusin iyo waano la waaninayo qofka moog ee maqan. sidoo kale waa macuunatun lilcaaqil, qofka caqliga lehna waxay u tahay kaalmo. haddii haweeney ay ka kaaftoomayso nin, hadday ka kaaftoomayso reerkooda ama hooyadeed iyo aabaheed oo ah kuwa hodan ah daraaddeed iyo baahida ay iyada u qabaan, hadday uga kaaftoomayso, maanta waad ka kaaftoomi lahayd. laakiin ragga, waxay tiri, dumarka ragga ayaa loo abuuray, ragguna dumarka ayaa loo abuuray, oo waa lisu abuuray, way isu baahan yihiin, mana kala maarmaan. waxay tiri gabadhaydii, waxaad ka baxday gurigii aad kusoo barbaartay iyo gurigii aad ku dhalatay ayaad ka baxday, oo waxaad sidoo kale ka baxday gurigii aad kusoo kortay iyo jawigii aad ku dhalatay, intaba waad ka baxday. waxaad hadday guri aadan garanaynin iyo saaxiib aadan horay usii aqoonin. maanta wixii ka dambeeya asagaa ayaa gacantiisa ku jirta oo boqorkaaga ah. waxaad noqotaa bay tiri, addoon u noqo, addoon ayuu kuu noqonayaaye. waxay tiri gabadhaydii, waxaad iga xambaartaa arrimo 10 ah. ixmili cannii khisaalan 10. waxaad iga xambaartaa arrimo 10 ah. takun laki dukhran wa dikraa. waxay kuu noqonaysaa dukhri iyo kayd iyo sidoo kale sharaf ayay kuu noqonaysaa. qodobka koowaad wey, laba isu raacisay. labada qodob ugu horeyso, al-uulaa waathaaniya alsuxbatu bilqanaaca walmucaasharatu bixusni alsamci waltaaca. alsuxbatu bilqanaaca, inaad kula saaxiibto, inaad ku qanacsan tahay waxa uu ku siiyo oo aadan u haqal taagin wax uusan haynin. walmucaasharatu bixusni alsamci waltaaca, iyo inaad kula dhaqanto dhaqan wanaagsan, warkiisana aad maqasho oo aad yeesho. qodobka 3 iyo 4 weeye, waaltacahudu limawqici caynihi waaltafaqudu limawdici anfihi. waxaad ku dadaashaa ood ka warhaysaa ishiisa meesha ay ku dhacayso. sidoo kale inaad tafaqudo oo aad baarbaarto sankiisa meesha uu dhacayo. oo maxay ula jeedaa? waxay tiri, falaa taqac caynuhu minki calaa qabiix. ishiisa yaysan kaa arkin wax foolxun. walaa yashama anfuhu minki ilaa atyaba ariix. sankiisuna yuusan kaa carfinin ilaa caraf midda ugu wanaagsan. waxay tiri, waaltacahudu, midda 5 iyo 6 weeye, waaltacahudu liwaqti tacaamihi. waxaad ka warhaysaa waqtiga uu wax cuno. waalhudu'u cinda manaamihi, marka uu seexanayna deganaanshaha ku dadaal. fa ina xaraarata aljuuci malhabah wa tanqiisu annawmi maqdabah. baahida kuleelkeedu waa mid qofka gubta, sidoo kale hurdadoo laga qasana waa wax qofka ka caraysiiya. midda 8 iyo 7 weeye, waalixtifaadu bibeytihi wa maalih. gurigiisa iyo xoolihiisa ilaali. waalircaa calaa nafsihi wa xashamihi wa ciyaalih. naftiisana ilaali iyo carruurtiisa iyo dadka uu xushmadeeyo.
waxay tiri marka arrinkana sidiisaba wuxuu ku soo aruuraa maaragtay sida wanaagsan ee wax loo jaangooyo iyo maaragtay ilmaha iyo dadka uu xashmeeyo oo si wanaagsan loo maamulo. qodobka 9 iyo 10 weeye walaa tufshi lahu sirran walaa tacsi lahu amra, sirtiisana ha faafinin amarkiisana ha caasinin. فإنك إن أفشيت سره سرتيسا هداد فافسو لم تأمني غدره دقرتيسا كما أمان هليسد دقرتيسا كأمان هلميسد. وإن عصيت أمره أو غررت صدره هذه الأمر كيسا عاسددنا وحاد عريرك دقيسا لابتيسا. ثم اتقي وحيت رزق إلالي الفرح إن كان ترحا إن أتفرح ذمرك ومرقيسين هي، والاكتئاب عنده إن كان فرحا inaad murugooto marka uu faraxsan yahay iska ilaali iyadana oo maaragtay ha samaynin. midda koowaad xaqiisa ood ka gaabisay weeyaan, midda labaadna farxadiisii oo aad ka qastay weeyaan. wakunii lahu ashadda maa takuniina lahu icdaama, waxaad u ahaataa mid maaragtay aad u weynaysa. yakun ashadda maa yakunu ikraama, wuxuu ahaanaya mid aad kuu karaameeyo oo si xad dhaaf ayuu ku karaameynaya markaad weynayso. waxay tiri waxaad ogaataa inaadan gaaraynin agtiisa aadan ka gaaraynin waxa aad rabto ilaa aad ka hormariso waxa uu jecel yahay, waxa adiga aad jeceshahay, raalli ahaanshihiisana aad ka hormariso raalli ahaanshahaaga. haddii aad sidaas maaragtay yeesho arrimahaagu way ku hagaagayaan, ilaahay baana maaragtay khayr kugu abaalmarinaya. waa loo qaaday gabadhii, waa la qaaday oo waxaa loo geeyey ninkii boqorka ahaa ayaa loo geeyey oo waa lagu wareejiyey. aad ayayna maaragtay arrinkeedu uu agtiisa uga weynaaday oo waxay ahayd qof aad u dhaqan wanaagsan oo aad u qurxoon oo qurux oo dhan lagu ururiyey oo dhaqan wanaag iyo cilmi iyo maaragtay caqli lagu ururiyey bay ahayd. kadibna maaragtay waxay u dhashay 7 boqor bay u dhashay oo kadib maaragtay gadaashiis maamulay Yaman. qisadan walaalayaal waxaa soo aruuriyey الميداني كتاب كيسا مجمع الأمثال، سيدو كلا العقد الفريد هي كسو أرورتي، سيدو كلا التذكرة الحمدونية هي كسو أرورتي. ولا ليال وعنو باهنا وحاونا أكسننا نفافنه وعن دادك ولا لها قارسينه وعن الخير كلا بخيلين وعن رقمده ونكسنا نفافنه رقمده حنحن مارتي عن دادك كربنه إلا وحن كبرينا إنه مارتي هو يمكن إنه توسيو وإنه هجاجيو وكديجا مارتي كوا سوى نكسن أفكر أو سوى نكسن الماضي ولا دردارمه. إلا وحن ويديسنا إنه دنبجينا رنو ضعفه. إلا وحن ويديسنا إنه نحنونيه وإيمان كانوا سوى. إلا وحن كبرينا إنه توفيق لنا وفجر خاتم لنا هجاجيو. والله سبحانه وتعالى على ما أقول وكيل.